bal waxaad ii sheegtaa wax markii cirka loo tuura laba lugood leh dhulka marka kusoo dhacaan afar lugood oo ninkii reer miyiga isagoon geesaha eegin iyo $5 soo bixiyo ninkii una farta ka saar isagu qudhiisu maba garanayaba wuxuu ninka weydiinay kaliya muhiimadiisa ujeedkiisu waxay tahay haddaba haddii adigu aad ahaan lahayd walow maxaad samayn lahayd halay soo celimiyaad oran lahayd $500 ma dagaalami lahayd. salaamullaahi calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal meel walbood joogtaan waa anaga iyo mar kale waxaan ayaa sheeko xikmad iyo murtiba xambaarsan. sheekadani waxay u dhaxaysaa laba nin, midna reer miyi ah midna reer magaalo. nin reer miyi ah ama reer baadiye ah ama geeley ah ama xoola dhaqato ah, hadba sida adigu aad u fahmi ogtahay. ninka kalena waa nin reer beled ah, reer magaal ah, aqoon-yahana wax bartay tay isuudna ku labista. wahagaag waxay isku qabsadeen cilmi aqooneed. doodooda waxay ahayd aniga ayaa aqoon ku dheer iyo aniga ayaa adiga aqoon ku dheer iyo adiga aqoonnimo dheeride aniga ayaa adiga aqoon naga sarreeya. waxay shard ku galeen in ay su-aalo isweydiiyaan. ninkii reer miyigahaa ayaa hadalkii la hormaray oo wuxuu yidhi su-aal iweydii. ninka reer miyiga wuxuu yidhi su-aal iweydii ninkaagan reer magaalo, haddii su-aasha anigu aan ka jawaabi waayo waxaan bixinayaa $5. ninkii reer magaalka la yaaba ninka reer baadiyaha iyo siduu isu qadqaadaya yasayena oo isla ma nin reer miyi ah ayaa $5 kugu booteynaya ayuu yidhi. isaguna su-aal baad iweydiinaysa adiguna, haddii aan ka jawaabi waaya aniguna oo su-aashaada aan ka jawaabi waaya $500 baan bixinaya. ninkii reer miyigahaa oo la yaaban lacagta tiradeeda $500 ayuu yidhi ninkan dhaqso lacagta waa inaad ka dhacsataa, xeelad iyo tabna aada isticmaashaa. ninkii reer magaalka ahaa ayaa su-aashii ku hormaray. deetana wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa dayaxa ama bisha iyo dhulka yaa weyn. ninkii reer miyiga ahaa geesuhu eegay, deetana jawaabtii su-aasha ayaa usoo bixi weysay. isagoon iswaalin markiiba jeebka ayuu gacanta geliyey, $5 ayuu soo bixiyey. micnaha $5 may tahay ma garanay, lan su-aashii ninka reer magaalka ahaa wuxuu ku guuleystay $5. su-aashiisina lagama jawaabin. ninkii reer miyiga ahaa ayaa su-aal weydiiyey markiisii ninkii reer magaalka ah, wuxuuna yidhi waxaad ii sheegtaa wax marka cirka loo tuuro laba lugood yeelanay, markii ay dhulka kusoo dhacaanna 4 lugood yeelanaya. wax markii cirka loo tuura 2 lugood yeelanaya, markii dhulka ay kusoo dhacaanna 4 lugood yeelanaya. etana uu ku wareeray, uu ka jawaabi waayo. wuxuuna ku qasban yahay haddii uu ka jawaabi waayo inuu $500 bixiyo. waxaa weye kaana furan ma hayso oo waa ka baxay iyo ma jirto meesha, ballan iyo shardi iyo axdi baa yaala oo raggu yaala. ninkii reer magaalka wuxuu bixiyey $500 ayuu ninkii farta ka saara. deetana wuxuu yidhi warniyahow waan arkaa $500 waad iga xanyuubsatay oo waad iga qaadatay oo waxaa weeye waad iga guuleysatay. bal waxaad ii sheegtaa wax markii cirka loo tuura laba lugood leh dhulka marka kusoo dhacaan 4 lugood oo i weydiisay, bal niyo ifahansi anugu ma garanayo. waxaa weye si walba aan u fikiri waa keeni waaye. ninkii reer miyiga isagoon geesaha eegin iyo $5 soo bixiyo ninkii una farta ka saar. macnaha $5 waxay tahay ma garanay, isagu qudhiisu maba garanayaba wuxuu ninkaa weydiinay kaliya muhiimadiisa ujeedkiisu waxay tahay in uu lacagtaa ku guuleysto. haddaba haddii adigu aad ahaan lahayd ninkaa reer magaalka ah ee $500 laga cunay, talow maxaad samayn lahayd? halay soo celimiyaad oran lahayd $500 ma dagaalami lahayd, ma ka socon lahayd xalaal calayk miyaad dhihi lahayd, maxaad samayn lahayd adigu? jawaabta adaa lagaa doonaya, commentiga ayaad inoogu roobaysaa. muuqaalkana sii faafiya sheekooyinka murtida iyo xikmadaha leh oo wax laga faa'iidayana xagga commentiga waad noogu soo diri kartaa insha allah.